gudaha in makaaladii maamul goboleedkii galmudug dowladda ku meelgaalka federaalka waxaan filayaa su-aashaas in wariyaha ay weydiiyey markii hore oo aan ka jawaabay haddaan rabto inaan kugu celiyo waxa weeye xiriirkan waa wanaagsan yahay xiriir fiican baan leenahay aad baad umahadsan tahay dhegeystow aanu kasii socono waxaad nagala soo xiriiri kartaan 22 38 eber 4 92 tan xiriirka markaan ka hadlo wasiir galmudug waxa ay dhinaca ku haysaa qaybo kamid ah Puntland soma daris banaha daris marka la yiraahdo dadka kamid ah madaxda Puntland markii la weydiiyo dhismahan qaybtan cusub ee galmudug waxay yiraahdaan aad baan ugu faraxsanahay dhankiina waa sidii ha noqoto dhanka nabadgelyada siyaasadda waxqabadka ha noqoto waxa la sheegaa xiriir wanaagsan aad leedihiin xiriirka aad leedihiin Puntland iyo galmudug waa sidee wasiir xiriirka anaga aan leenahay galmudug iyo muxuu ahaa Puntland waa xiriir Soomaalinimo waa xiriir walaaltinimo waa jirta muxuu ahaa waxyaalo la isku khilaafsan yahay inay jiraan waa dhici kartaa in mararka qaarkood iska horimaad meelaha qaarkood imaan karo sida sanadkii hore dhamaadkeedii ka dhacday magaalada caasimadda Gaalkacyo hase yeeshee anaga waxaa iriduhu noogu furan yihiin nabadda iyo heshiisiinta iyo in la xaliyo markasta wixii khilaaf ee jira anaga dhinaceen waana rabnaa anaga dad kasta oo Soomaaliya inaan xiriir fiican la leenahay wixii jirana markaas in la xaliyo anaga dhinaceena wixii ku xiran weeye waan gartay waxaad nagala soo xiriiri kartaan 22 Puntland dhankeeda marka la tilmaamo ismaamul goboleedkooda inuu daabu soo jiray kiina waa 4 sano hadda sanad guuridii ugu dambeysay hadda la sheegay 4 sanadood waxqabadka iskuulo badan baa la furay jaamacadaha la furay waxqabadkiina aad buu wanaagsan yahay dhismaha dalka ama qaybtan galmudug ma haysaa wasiir tirada dadka ku nool intay laag tahay populationka galmudug guud ahaan aniga hadda tirakoobkoodii ma hayo laakiin population aad u badan oo muxuu ahaa waliba dadkii awal deegaan ka soo jeeday kaliya maaha galmudug waxaa hadda ku nool qaxootiga labaad tirada markii la fiirinayo qaxootiga ugu badan Soomaaliya hadda wuxuu ku sugan yahay Afgooye oo 30 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho qaxootiga labaad tiro ahaan hay'adaha samafalka oo UNHCR iyo hay'adaha kale oo gargaarka fidiya iyo dadka kale oo arintaas xoogaalku ah waxay soo sheegeen qaxootiga labaad inuu ku nool yahay dhinaca galmudug Gaalkacyo waan gartay ma miyaan hayna cid ku jirta khadka telefoonka oo Soomaaliya su'aal qabta halo salaam عليكم السلام كسلو لانتا نفكا صوماليا يدعدا سمدان وهبينكا حدا نهود سوغلنو مرتي waxa halkan ku ah wasiir ka tirsan ismaamul goboleedka galmudug oo lagu magacaabo Cumar Xamuud Roble kusoo su'aashaada iyo sida ay u dhigato dhageystay وانا kuma qoyaan fila wasiirku wasiirku waxaan jeclaanahay inaan hal su'aal weydiiyo waayo hadda ka wariyo wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan ku dayno Somaliland iyo Puntland magaalada labadaas maamul waxay ku xiran yihiin si toos ah oo hadda aan qarsoonayn dowladda Itoobiya oo marba maarta xiriirka soo leeyahay marka hadda wuxuu doonayaan marka inay ayana galmudug ku xiraan Itoobiya waa su'aal fiican weeye arrinta ku dayashada aniga point-ka ka hadlay wuxuu ahaa dhismaha habka loo dhisay dowlad goboleedka galmudug habka loo dhisay haddii aad dhageysanaysay su-aashii hore oo wariyaha weydiiyey markii aan ka jawaabayay muxuu ahaa waxaa caalamku isku dayay inuu Soomaaliya dhiso asagoo isticmaalayo methodka la yiraahdo top down approach macnaha kor laga soo bilaabo madaxweyne la dhiso ra'iisul wasaare la magacaabo wasiiradii la dhiso sidaas hoos loo wado ayaduna waa shaqayn weeday caalam isaad la socotid hase yeeshee waxaa shaqeeyay oo tusaale fiican noqday baa anigu tusaale fiican habka loo dhisay maamulada ka jira muxuu ahaa Somaliland iyo Puntland especially Somaliland oo intii guurtidii iyo siyaasiyiintii iyo bulshadii isugu tagtay Boorame halkaas laga soo dhisay hoos laga soo dhisay maamulka tusaalaha aniga aan ka hadlayay waa hab dhismeedka dawladda baa ka hadlayay muxuu ahaa arrimaha kale oo xiriirka dibadda kuma jirin muxuu ahaa warbixinteeda kuma jirin hore magacaaga muxuu ahaa walaal magacayga fahan weeye sababta waxaan jeclahay inaan wasiirka weydiiyo bal si kooban aye
waxaan jeclaan inaan weydiiyo xiriirka sidee la leedihiin deegaamada kale oo dariskiina sida maamulkan xibin iyo xeeb iyo meelaha ka taliyo siyaasha ma ku jirtiin inaan raggaas aad maaragtay kusoo eegtiin aan biirisiin maamulkiina waxa weeye waa run wey xibin iyo xeeb galmudug magaca galmudug waa galgaduud iyo mudug galgaduud iyo mudugna waa taqaanaa geography ahaan meelaha ay ku yaalaan annaga magaca saas baan u bixinay markii hore hase yeeshee in dhulka annaga hadda maamulkeena uu ka shaqeeyo ma gaarsiisna deegaanka hadda lagu magacaabay maamulka laga dhisay waa xibin iyo xeeb wadahadalna waa wadnaa inaan muxuu ahaa midowno in la isku daro in hal maamul la sameeyo midnimada Soomaalidu xoog ku yeelan kartaa cid kasta oo maamulkan muxuu ahaa nala wadaagi karta oo muxuu ahaa meel kasta oo aan ku ballaarin karno waxaan ku jirnaa barnaamijkeeda inaan muxuu ahaa aan ka shaqeyno wadahadalkuna waa noo socdaa xiriir fiicanna waa leenahay arrimahaasna wax badan baan ka wada hadalnay welina waa ku guda jirnaa sidii aan xibin iyo xeeb maahina aan uga sii gudbi lahayn dhulkii loo yaqaanay mudug waagi hore ama galgaduud iyo mudug marka la isku daro wadahadalku waa noo socdaa maamul dhulkaas oo dhan ku fidsan baan rabnaa oo dadka deegaankaas oo dhan ay qayb ka yihiin taladiisa iyo dhismihiisa iyo isku keenistiisa waayahay waxaan filayaa inaad qanacsan tahay 21 Eber 9 ayaad naga soo aad bad waasan tahay dhageyste jalawsi haddii aan ku weydiiyo tii ahayd arrimaha Ethiopia marka laga hadlayay dalka Soomaaliya waxaa la sheegaa in Ethiopia ay awood badan iyo faragelin ay ku samayso maamul goboleedkan la dhisay 4 sano jirsaday ee galmudug faragelinta ama xiriirka ay leeyihiin nooc kasta noqday dalka Ethiopia waxaad nooga sheegi karto arrimahaas ku saabsan Ethiopia annaga dawladda federaalka ma nihin dawladda Soomaaliya ma nihin annaga waxaan nahay maamul hoosaan nahay Ethiopia laakiin waxa la sheegay si gooni ah inay maamulada kala duwan ee waqooyiga ama Somaliland ama Puntland inay ku haystaan xoog waxay qabtaan wasiirada iyo dawladda loo sheego ay u sheegaan Ethiopia annaga cid xoog nagu haysataa ma jirto waa maamul hoos ka soo dhisnay waa maamul annaga gacanteena ku haysano cid xoog ku haysataa ma jirto dadka bulshada iskale maamulkan ayaga dhistay ayagaana wata wixii xiriir ku saabsan Ethiopia waa dawladna dawlad bay la hadashaa federaalka bay la hadlaysaa maahina annaga muxuu ahaa na soo aadimayso saan markii Puntland Ethiopia ka hadlayso arrimaheeda siyaasadeed kalama xiriirto dhanka Soomaaliya ama Sheekh Shariif waxay si toos ah u xiriiraan Puntland iyo maamulkeeda waa ognahay idinku watiino waa sidaas oo kale kulli waxa weeye muxuu ahaa arrintaas annagu Puntland waxay shaqeynaysaa 10 sano Somalilandna ka badan annaga waxa weeye waxaan ku mashquulsanahay dhismihii maamulka iyo barnaamijyadii hoose oo muxuu ahaa wax kasta waxaan ka soo bilownay wax la yiraahdo scratch marka barnaamijyada siyaasadda muxuu ahaa galmudug iyo Ethiopia iyo Kenya iyo wadamada annaga wali hadda waa barnaamij aanan aanan galin weeye barnaamij aan muxuu ahaa wali waqtigiisa aanan gaarin weeye waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka arrimahaas ka wada hadlaya dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia federaalka Soomaaliya iyo Ethiopia marka aad ka leedihiin Ethiopia kale waxa ka xiriirsan dawladda Sheekh Shariif والله هذا أنا local بان هاي local أنا قدرها عن لنا هاي دولة الصومالية أنا وكيلة دولة الصومالية الله حريرنا أنا سكولة الرئيسية جامعتها عاوني إذا قلم كيش أنك الصومالية دولة كيش دولة الصومالية لصعتها إنسان أود وحكوا عاوز إنسان لهين هسيا شاب محوها سياسة لهان iyo protocol ahaan habab kale bay noo caawisaa ma hina dawladda federaalka Soomaaliya ma hayso awood dawlad goboleedyada ama deegaanada Soomaaliya ay gacan ku siiso ma laha awood dhaqaalana ma laha awood muxuu ahaa waa la socdaa laakiin anagu waa isku tashanay dadka deegaanku waa isku tashadeen resource-ka ayagu haystaan bay ku xisaabtameen resources-kaas baana lagu dhisaa iyo wixii hay'ada oo muxuu ahaa international NGOs oo ka qayb qaadanayna waa la kaashadaa baarlamaanka dalka Soomaaliya dhaqaalaha la siiyo caawinaadda sida la sheego adduunka ka timaada idinku baarlamaankiina iyo wasiiradiina ayaa maalgeliya dhaqdhaqaaqa aad samaynaysaa Norway ku timi ama kulanada ama hawlaha aad qabanaysid dhanka dhaqaalaha xagee waad ka heshaan caawin waa sidaan ku sheegay hawlaha barnaamijyadaas horumarinta waa isku tashanay baarlamaanka iyo wasiiraduna waa isku tashadeen resource-ka annaga aan haysanaa ku shaqeynaa so far adduunkuna muxuu ahaa qaldaan waa gaarsiinay sidii looga qayb qaadan lahaa deegaankan galmudug sidii gacan loo siin lahaa barnaamijyadaas horumarinta ah ama xoojinta maamulka ah wixii muxuu ahaa dhaqaalaha oo ay ku fidin karaan
waa u sheegnay inay muxuu ahaa haddii alla ku roon yahay ay ka qayb qaataan. yaala wasiir booqashadaada magaalada Oslo aad ku timi ma noqotay mid successful ama aad ku guuleysatay u timi aad iyo aad waxaa successful midaan hadda ugu dambayso